بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan rabaa inaan kasaan uga gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waxaan rabaa in la qaybsado xanuunkii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lahu ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. ilaahi u naxariisto sabri iimaan intii ay ka geeriyoodeen dadkaasi Allah u naxariisto inta dhaawaca Allah caafiyo. runtii waxaan la qaybsanaynaa xanuunka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa jannada inuu geeyo dadka dhaawacana ilaahay caafiyo. burbur hanti iyo mid nafeed iyo mid nafsiba waa ka dhashay. arrintaasuna waa runtii arrin muddo soo socotay argagixisada gaar ahaan al-shabaab ay muddo ku hayeen ummadda Soomaaliyeed. aad iyo aad aan uga xunnahay. dadka Soomaaliyeedna maanta waa ka dharagsan yihiin shabaab waxay yihiin inaysan shalay hadday diin ku gabanayeen maanta aad ay u caddahay inaysan diin xiriir la lahayn bal ay yihiin dad mujrimiina u soo shaqo tagay ummadda Soomaaliyeed inay baabi'iyaan dhibaateeyaan. waxay hortaagan yihiin fidinta diinta islaamka, waxay hortaagan yihiin dowladnimada, waxay hortaagan yihiin horumarka. marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa meel ay joogaanba inay horta garab istaagaan dadkii dhibaatada soo gaartay. dadka Soomaaliyeed maanta duruuf dhaqaale ay ku jiraan oo adag. marka qofkii laga dhintay ama qofkii laga dhaawacmay asagiina daryeel u baahan yahay. qofkii dhaawac ahayna daryeel u baahan yahay. qofkii dhintayna asaga laftigiisa tartiib u baahan yahay. marka ganacsatada iyo dawladda iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan dadkaas. waa runtii arrin culayskeeda leh oo la og yahay. waxaa laga yaabaa qof quutul yoomkii ku murugsanay in uu dhinto dadka uu ka soo tagayna ay meeshii joogaan. marka ha loo istaago ha la garab istaago dadka Soomaaliyeed wixii lagu bartay oo ahayd xilliga adag in la garab istaagaa taas maanta loo baahan yahay. qodobka labaad waxa waaye arrintan waa ka duwanta arrimihii hore. waxay ogtahay inay jawaab u tahay dagaalka xoogan ee lagula jiro al-shabaab ee la rabo dalka in looga xoreeyo inay jawaab u tahay. ujeedaduna ay tahay dagaalka in la kala daadiyo. marka waxaan leenahay yaan loo jilcin hal la sii laabo dagaalka maxaa yeelay xal ma laha. waxaad ogtihiin 2009 waxaan isku daynay inaan culimada adduunka intaan ugu yeerno aan niraahno war dadkan iyo culimadii Soomaaliyeedba dadkan waxa ay rabaan ha keenaan. diin haday rabaan diyaaraan nahay, haday xukun rabaan diyaaraan nahay, qaybaan siinayna. intaba waa soo diideen. marka afkaartaan afkaar diimeed ma aha bal waa afkaar lagu dhibaateynayo diinta islaamka iyo shacabka Soomaaliyeed. marka shalay ayagoo ducafo ah oo masaakiin ay yimaadeen dadka Soomaaliyeed waxay u qaateen inay diinu ka maqanta. laakiin maanta waa muuqata inaan diinu ka maqnayn. marka waxaan leenahay dagaalkooda ayaan laga jilcin. ciidamada qaranka ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida iyo dhammaan goobaha kala duwan ee hawluhu ka socdaan deegaanada kala duwan ee dagaaladu ka socdo inay sii laabaan waan ku mahadsan yihiin. waa ugu hambaleynaynaa runtii dadaalkaas. sidaas oo kale meelaha ay joogaan ee aan wali laga furin furmahana in looga furo. maxaa yeelay culayska in la wada qaataa fiican la wada qaado. markaana waxaa muuqata fursad weyn oo looga xoroobi karo al-shabaab. marka in mataqaanaa dawladana la garab istaago dadka dagaalamaya la garab istaago aagagana la furo oo lagu badiyo. sidaas aan ku talinaynaa. intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dadka adduunka ama dawladaha daneeya Soomaaliya ee runtii xilli dheer la garab taagnay kaalmada waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka ay sameeyeen gaar ahaan dawladaha sida gaarka uga taageera hadda ciidanka iyo shacabkaba arrimaha la dagaalanka argagixisada inay sii laabaan dadaalkooda iyagoo ku mahadsan kii hore. maanta fursad waxaa muuqata looga xoroobi karo shabaab in ay noqoto taariikhdii ugu dambeysay ee shabaab la arko. waxaan rabaa inaan u gudbo al-shabaab naftarkooda. shabaab waxay u qaybsan yihiin sidaan ognahay dad munxarifiin ah oo fikir khaldan ummadan ku hogaamiyay oo aaminsan caqiidahan oo aaminsan dhiigga islaamka inay daadiyaan iyo kuwa siyaabo kala duwan uga qayb qaata. kuwa munxarifiinta
waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahooda u soo laabtaan dhiigga islaamka ay daadanayaan ay joojiyaan dadkan waa muslimiin ummadda Soomaaliduna taariikh dheer ay u leedahay diinta islaamka waxay ku soo gaartay hab silmi ah hab nabadeed ay ku soo gaartay dhiig kuma daadanin weligooda waxay ahaayeen dad muslimiin ah oo islaamkooda ku wanaagsan fidiya islaamka Zayla iyo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale weligood waxay caam ku ahaayeen diinta islaamka inay fidiyaan oo loo soo doonto culimo waaweyn ajlaha ka timid halkaas marka maanta waa nasiib daro wiilal yar yar oo diinta islaamka aan aqoon u lahayn taariikhdeeda la socon oo la marin habaabiye inay ummadii u dilaan waa ridowdeen iyo waa gaalowdeen waxaan rabaa inaan xasuusiyo diinta islaamka meel lama gaarsiin karo haddii dawlad la waayo masaajidii iyo mataqaanaa duruustii soo jirtay waxay istaageen markii al-shabaab uu yimiday sababtuna wax kale ma amniya la waayay marka diinta islaamka ayaga caqabad ku ah nolosha ayaga caqabad ku ah dawladnimada ayaga caqabad ku ah waa cadawga koobaad ee maanta dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin marka waxaan leenahay war hadaad diin u gargaaraysiin marka ugu horeysa horta barta fahma wax aan dhiig islaam ahayn oo ummad in la burburiyo ahayn na ka shaqeeya oo maanta qofkii raba inuu wanaag sameeyo agoontaas oo kaalmay kara dugsi quraan oo dhisi kara masjid oo dhisi kara dad dhibaataysan oo kaalmay kara hadduu wax kala waayo waajibkii ilaahay ku lahay iyo waajibkii waalidiintiisa iyo qoyskiisa hadduu qaato intaas ka badan marka waxaan leenahay ilaahay u soo laabta kuwa la marin habaabiye waxaan leenahay xilligii waa soo dhamaaday u soo laabta dadka Soomaaliyeed u soo laabta dawladnimada ka qayb qaata maanta ugu yaraan dhiigga daadana inuu istaago eray yaraan rabaa inaan iraah marka oo ugu dambeeya fikir maanta soo bilowda ma ah khawaarijtu waxay soo bilowdeen xilligii sayidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha waxaad ogtiin Abdullah ibn Muljam wuxuu ahaa nin xaafida oo qaari ah oo diinta islaamka aad u yaqaan hadana Sayyid Ali wuxuu u dilay inuu Sayyid Ali murtadi hogaaliyo marka qofka Sayyid Ali oo xilligaas joogay oo la ogahay sharafkiisa iyo maqaamkiisa iyo meesha uu ka joogay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maqaamka uu ka joogay agtiisa qofkii diin u dilay kuma deynay adiga marka yaanan marnaba isdhihin afkaartaanu hadday bilaabatay hore u jiri jirtay weligeedna sidaana loola diriri jiray marka yaan loo kala harin maanta fursad looga adkaa karaa jirtay hal laga wada faa'iideysto gabagabadii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu ummadda Soomaaliyeed dadkaas mujrimiinta ah ee u soo shaqo tagay ee kuwana ajaanib yihiin kuwana ay yihiin dad Soomaaliyeed la marin habaabiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu uga gargaaro ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo horumarkeeda u soo celiyo sharafkeedii maanta runtii caqabad ka weyn ma jirto joogitaanka al-shabaab iyo dhibaatada ay ku hayaan aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.